السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا وحن ورد كاين عالم كي يكون صومالي ذا channel كان بدي بري دولة أمريكا كايا ورمي لتريك وقاضي فنسويلا مانتا وحن الله شجعين مدحونا فنسويلا نيكولاس مادورو يحاس كيس الله قبتي كدب هولقل خاص مدحونا أمريكا دونالد ترامب أيا كل واقع إن هولقل خاص يقوليستي إسلام كان مادورو اللي هرقين دونهم بحكمة أمريكا كا ترامب ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanku uu maamuli doono Venezuela inta hawlahaasi lagu jiro. Dhanka kale, madaxweynaha Taiwan Jinping ayaa jeediyay khudbad sanadeedkiisii isagoo ku celiyay himilooyinka xukuumaddiisu ka leedahay gudaha dalka iyo xagga siyaasadda dibadda, gaar ahaan arrimaha Taiwan iyo mideynta qaranka. Dhanka kale, China ayaa si adag u cambaareeyay falalka militari ee Mareykanka ee Venezuela iyadoo dalal kale ee caalamka la wadaagaysa aragtideeda iyo walaaca ku aadan saameynta siyaasadeed ee caalamka. Dhanka kale, Sacuudi Arabiya ayaa duqeymo cirka ka fulisay gobolka Haydaramood ee Yemen, taasoo keentay dhimasho iyo dhaawac. Sidoo kale, kacdoon baahsan oo ka socda Iiraan ayaa sii xoogaysanaya iyadoo rabshadaha ay aad u sii ballaaranayaan. weeraro cirka ah iyo dagaalo kala duwan ayaa saameynaya gobollada bariga dhexe. Dhanka kale, arrimihii Somaliland ayaynu gelaynaa hadda. Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Maxamed Cali oo Cabdi oo maanta gaadhay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa fariin u diray dalalka jaarka la ah Somaliland isagoo ugu baaqay inay ku koobnaadaan arrimaha iyaga u gaarka ah. Fariintan ayaa noqonaysa mid si gaar ah ugu socota dalka Jabuuti oo muddooyinkan ka waday tallaabooyin uu kaga hor imanayo ictiraafka Somaliland iyo heshiiskii hore u dhex maray Somaliland iyo Itoobiya. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale reer Booramo ugu baaqay inay ammaankooda ilaaliyaan isla markaana uu gobolka u joogayo muddo si uu u dhageysto cabashada dadka. Dhanka kale, khabiir Maraykan ah oo la yidhaahdo Ellen Bram kana tirsan American Interest Institute ayaa taageeray in jamhuuriyadda Somaliland si rasmi ah loo aqoonsado. Wuxuu ku sababeeyey xasilooni siyaasadeed, hay'ado dimuqraadi ah oo shaqaynaya, deegaano ganacsi oo furan. Brian wuxuu sheegay in aqoonsiga Somaliland la jaanqaadi karo siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, gaar ahaan fikirada madaxweyne Donald Trump, isla markaana u adeegaya danaha istiraatiijiyadeed ee Mareykanka ee Geeska Afrika. Wuxuu Somaliland barbar dhigay Soomaaliya isagoo xusay musuqmaasuq iyo qalalaase ka jira halkaas, kuna dooday in aqoonsiga Somaliland xoojin karo amniga, ganacsiga iyo saameynta Mareykanka ee gobolka. Dhanka kale, safaaradda Soomaaliya ee Addis Ababa ayaa isugu yeedhay safiirada Carabta, Morocco iyo Imaaraat ayaa ka cudur daartay, waxaana la sheegay in loo xaqiijiyey in aqoonsiga Somaliland uu yahay arrin aan la joojin karin. Dhanka kale, beelweynta direed ee degta Soomaaliya, gaar ahaan gobollada dhexe, ayaa taageertay aqoonsiga Somaliland. waa kuwan la yar daawada. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي باب مهضة إسكالي waxaan rabnaa meeshaan inaan ku muujino anoo garaad mideeye oo garaadada suuqa kamida oo degta gobolada dhexe oo Soomaaliya dareenkaaga ku wajahan oo aan ka qabno walaalahayo ictiraafka ay heleen Somaliland iyo farxadda inaan la qaybsanaan rabnaa. waxaan leenahay walaal hambaliyo, waa idin la leenahay farxadda, waa idin la qaybsanaynaa, waa ku taageeraynaa, garabkoodaan nahay. ilaahay baa na siiyey oo waxaan ugu hambaliyeynayno. waxaan kaloo leenahay ummadda Soomaaliyeed, annagu Soomaaliyaan ka mid nahay. Soomaaliya haddaan ka mid nahayna qofba sibuu u arkaayo, dad badan baa waxay u arkaan inay waxaas Somaliland ay heshay ay dhib tahay. annagu uma aragnay. daawadayaal, war wixii caalamka iyo Soomaalida idinka haynay waa naga intaas. Bye. Subscribe and like, share, please.